villa Soomaaliya hadma mirsan doontaa waa qodobka ay ku saabsan tahay faallada warku waana qalinkii Xuseen Cali Nuur. heerka garasho ee bini'aadamku uu kala duwan yahay wuxuuna ku kobcaa aqoonta iyo waayaha waxa uu ku kala duwan yahay hadba sida loogu dhaqmo oo noqon karta mid waxtar ama mid waxyeelo leh mid cadaalad ku dhisan iyo mid cadaalad darro ku dhaqanta. allaha u naxariistee marxuum Faarax Galooley oo u dhashay gobolka Banaadir labadii ra'iisul wasaare ee ugu horreeyay xornimadii 60kii ka bacdi markii ay villa Soomaaliya magacowday wuxuu yidhi Cabdirashiid iyo Cabdirasaaq mooyaane inta kale marootiba labada ra'iisul wasaare waxa u dhasheen gobolka Bari ee Soomaaliya. allaha u naxariistee madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay allaha u naxariistee marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo isbedel weyn ku sameeyay qaab dhismeedkii iyo jawigii siyaasadeed ee dalkii Soomaaliya hase ahaatee jawigii cusbaa ee siyaasadeed ma raagin. 2 sano kadib 1969kii golihii sare ee kacaanka ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa villa Soomaaliya inqilaab ku qabsaday. muddadaasi marxuum Faarax Galooley qaab dhismeedkii iyo doorashooyinkii markuu ka yaabay wuxuu yidhi nin dooran bayna leeyihiin doorta. 21 sano kadib halgankii hubaysnaa ee SNM iyo gacansiinteedii SNC ayaa soo afjartay taliskii villa Soomaaliya 1991kii labada jabhadood midna lalama tashan ee waxa villa Soomaaliya gacanta ku dhigay Cali Mahdi iyo kooxdii Manifesto ee magaalada Muqdisho. iska horimaadadii sanadkaasi ka bilowday Soomaalidii Talyaanigu xukumi jiray weli way socdaan. talisyadii iskaga dambeeyay ee villa Soomaaliya nooc kasta oo ay ahaayeen deganaansho kumay soo celin dalkaasi. xaaladda villa Soomaaliya maanta ayay ugu liidataa ciidamo shisheeye oo ka socda ama u adeegaya dana kala duwan mararka qaarna iska soo horjeeda ayaa hadba lagu soo kordhinaya. dhab ahaantiina maanta villa Soomaaliya faraha waxba uguma jiraan. jawaabtu waxay tahay waxay villa Soomaaliya miirsan doontaa marka shacbiga Soomaaliya ay ka quustaan riyada midnimo dambe oo jamhuuriyadda Soomaaliland la yeelato. marka shacbiga Soomaaliya ay fahmaan inay villa Soomaaliya ka dambayso kala qaybsanaanta iyo iska horimaadka shacbiga gobolada dalkooda. marka shacbigu ogaado inay villa Soomaaliya taliskeedu yahay magac kasta loo bixiye mid aan ka duwanayn kii kalidii taliyihii hore u soo maray. marka shacbigu ku qasbo in nidaamka federaalka ah ee ay qaateen sida uu yahay villa Soomaaliya ugu ogolaato laguna dhaqmo. marka la joojiyo faragelinta ay Soomaaliya ku hayso garsoorka iyo baarlamaanka. marka lagu qasbo villada in Banaadir ay noqoto gobol sida gobolada kale ee dalkaasi. ugu dambeynna waxay villa Soomaaliya miirsan doontaa marka ay shacbiga dalkaasi ku nooli ogaadaan in fikirka villadaasi yahay mid u eg dameerkii lagu yidhi berri baa darane burdhaaf ee ugu jawaabay yaan dabaday dareemaba bixin.